السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا جميع هنتبه ميل والبودي قد دعونيسان عندنا يا مانتين عن كهذا أرمها دبدعها يكون مد دروشوينك إيو وليبه كراسة اللي حتى منك مجال ذكر بهر تعالى وأيضنا ورع الصب وكسب حيا أرمها صندوني يا مانت إنه برسيد در أين أقول فقرنا سي أين أفهمه وحال الشري وآلة زوم كشري معمول قبل جده يرز الوزراء هذلك isla markaasna waxay sheegeen in doorashadii xilligii loogu talagalay inaysan ku dhici karin isla markaasna dib loo dhigay ilaa 15 bisha soo socota ama bisha March la yiraahdo ay ugu soo aaday wax cudurdaar ay wax raali gelina kama aysan bixinin waxay ku sheegeen sababta ay doorashadu ay u daahday saddex qodob kow waxay yiraahdeen waa abaaraha dalka ka jira labo xiisad amni oo aan la ogeyn meesha ay ka jirto ayaguna aysan sheeginin iyo finally وليس نقاله أو تشرا أصلا وشيئين وأصلا أيضا وح محل هذا explanation أيضا كبحينين أما أيضا شرحينين بني رحته حرمتي لا يابله سيدا أبارته ذلك كشرته أي أسامة يسي دور شو إنك ذلك كشرة إنك استوى نرش بني آدم كيسكو حيرانت هاي حضنا هذه شعب عضينا يان أو أي تولوين كعضينا يان أو أي مجالوين كعضينا يان إسلام مركزنا أي بيلاني أبارة شرتو حال أوران كريا شعب كيبا قحي ama ka guuray deegaamadii sida tuulooyinka ibaadiyihii magaalooyinkii ka kala cararay oo meelo kale aaday sida daraaddeed dad codeeyo waa la laayay waa la oran karaa waa hadii ay shacabku codeynayaan laakiin doorashada maanta Soomaaliya ka jirta ee la boobayo ee gudiyada iyo ergadaba lacagaha waaweyn loo qaybinayo sida ay abaarta u saameysay ma garan karayo abaartu waxay saameynaysaa dadka xoolaha haysta laakiin nin jeebkiisu weyn yahay ugaas oo lacag arursanaya nin erga ah oo waxa lagu qortay nin malxiis oo lacag la siiyay ma garan karayo qaabkii u saameynayso cidii garanaysa waxa jeclaan lahaa inay ii sheegto taa marka halkaas aan uga tagayaa qodobka saddexaad ee waxa loo yaqaano inay jirto culays dhaqaale weeye sababta doorashada loo isbaareysanayo waxa jirta runtii dagaal u dhaxeeya beesha caalamka iyo maamul goboleedyada qaybo kamid ah isla markaasna ay isku hayaan in maamul goboleedyadu waxay doonayaan in lacag dhaqaale ah oo la doonayay in doorashada lagu kabo oo ay beesha caalamku bixiso ayay doonayaan beesha caalamkuna way diidan tahay sababta u diidan tahay ana idin sheegaya waxa jira dhaliilo dhowr ah oo ay beesha caalamka iyo nimanka deeq bixiyaasha caalamiga ah Soomaaliya lacagaha ku bixiya ay waxa jira cabashooyin ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka maxaa kamid ah cabashooyinkaas waxaa kamid ah koow qoondada haweenka ayaa kamid ah oo aan runtii la marinin wadadii loogu talagalay in loo mariyo ama 30% aan la siinin dumarka labo jadwalka doorashooyinka oo markii shanaad fashilmaya waa cabasho kale oo ay qabaan deeq bixiyaasha saddex wada furnaanta doorashada wada arkaysan sida doorashada loo boobay wax doorashooyinka ka jira arrimaha iyo arrimo la mid ah oo fara badan ay nimanka beesha caalamka la yiraahdo ay tirsanayaan waana waxyaalaha ay ku xirayaan in lacagta ku bixiyaan maamul goboleedyadu marka ma doonayaan inay maraan wadada loogu talagalay oo lacagta lagu bixin lahaa isla markaasna waxay doonayaan in lacagta la bixiyo waa sababta ay doorashadu isbaaraysanayaan qayb badan ayaga kamid ah ma kulligood waa qayb ayaga kamid ah waxa beesha caalamka iyo deeq bixiyaashaasi ee runtii qufil weyn oo zara hore u jabiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asaga hore u sheegay hadii doorashadu aysan buuxinin shuruudihii iyo requirementiga loogu talagalay hadii aan la fulinin heshiisyadii in wax lacag aan lagu bixinin asaga qofilka ku jabiyay sidaan xogta ku hayo marka asaga qofilka ku jabiyay nimankiina lacagtii way diideen maamul goboleedyada lacagtii la diiday ayay naawilayaan ma doonayaan in marka ay fuliyaan shuruudihii lacagta ku iimaanaysa markaysa halka way halka la iska qaban laayay waana qodobka saddexaad oo ay leeyihiin culays dhaqaale jira waxay doonayaan in dhaqaale ay helaan laakiin ma doonayaan wixii dhaqaalaha lagu bixinay inay fuliyaan taa waa halka waa sababta ay doorashadu ay u taagan tahay waxa la yaab leh in Axmed Madoobe oo ay wali kuraas aad u badan ugu dhiman tahay magaalada Kismaayo inuu garbaharey uu ka hadlayo kuwii Kismaayo ilaa sababta u haysta lama garanayo waa dhaqaale la'aanta Saciid Cabdullaahi Dani ilaa hadda wuxuu u haysta lama garanayo kuwa garow ku dhiman markii laga tago kuwa boosaaso oo arrin ay ka jirto qof walba waa sidaas markaysaan lafta gareen hebel qoorqoor dhamaantoodba nin walbaba runtii lugba u laaban way dhaqaalahaas in la helo waa laga wada siman yahay roob leh waa ninka ugu daranba oo arrimaha sida aadka oo shaqeeya marka kulligood waxa isku sheegayaan
wax aan runtii waxba lagu heleynin doorashada hadday wadaan oo ay dhameeyaan waxay ka baqeen lacagta inay waayaan hadday isleeyihiin marka amad heshaan marba point iyo check point bay dhiganayaan dhaqaalaan baa jirta ma garanayo marka dhaqaalahaas loo helayo waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka kaleeto oo asaguna ah guddigii Roble iyo Axmed Madoobe xal ay sheegeen oo la yiri waxa loo dirayaa Garbaharey muxuu ahaa mise shaqeyn kara aw heshiiskii 16 February ay raahday magaalada Baydhabo lagu galay oo looga hadlay arrimaha Garbaharey oo habraac iyo waxa loo yaqaan heshiis toos ah oo halka ka dhacay fulintiisii xagee ku dambeysay waxa runtii la yaab noqday in ayadoon la fulinin heshiiskaasi oo Axmed Madoobe laga sugayay inuu gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka Garbaharey uu soo magacaabo in inta arinta meel la iska dhigay in hadda la bilaabay jadwal cusub iyo topic cusub oo lagu doonayo in kuraasta Garbaharey taa lagu xalaalsado ma shaqeyn doontaa oo iman doonaa laakiin waa topic cusub oo la furay ayadoo kii hore aan waxba la iska weydiinin Roble waxba kama uusan weydiinin Axmed Madoobe wixii aan ku soo gudbiyay oo guddiga ahaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisii maxaad u keeni weyday si ayagu doorashada qabtaan arinta la isma weydiinin xaalada marka waxa la yiri waa in guddi cusub loo diraa hayaa la yiri markaysa qorshahan wuxuu ahaa qorshe aan horay idinkugu soo gudbiyay bishan hadda aynu ku jirno horaanteedii baan xogta helnay waana idin sheegay waxaan rabaa inaan xasuusiyo muuqaalkan halka ay soo saari doono 10kii February ayaan duubay oo idin soo gudbiyay maanta tan waa 25kii waa 15 bari ka hor ayuu muuqaalkani ahaa in yar bal ka dhageysto waxaan idin sheegay maalinka waxaan idinku darayaa waxaan hayaa xog cadeynaysa in Axmed Madoobe iyo Roble ay doonayaan in markii ay dhamaato doorashooyinka kaleeto ay yiraahdaan anaga doorashada Garbaharey qabanayna anaga codayaasha soo magacaabayna anaga ergada aruurinayna iyo arrimaha la midka waxa la doonayaa in Roble la isticmaalo okay haddaba marka muxuu yahay qorshaha marka meesha yaala qorshaha Axmed Madoobe iyo doonayaan Roble oo ay rabaan inay ku boobaan kuraasta Garbaharey taala oo ergada iyo guddi baa la dirayaa iyo ila meereystaan cusub maxay tahay inaan idin si badamiyaan rabo qofkii doonaya maalinkaas inuu dib ugu laabto muuqaalkayga inta page-kayga dib ugu laabataan title-ka iyo video-ga wada arkaysaan bal dib u daawado wixii aan maalinka idin sheegay iyo guddigan maanta la soo magacaabay sida ay isku leeyihiin ama sida ay isku yihiin Axmed Madoobe iyo ninka loo yaqaan Roble waxa soo dirsaday oo qorshaha soo dejiyay dawladda Kenya waana qorshe dawladda Kenya ay Nairobi soo dejisay mar badan oo horena waa sheegay hadda waa ku celinaya waxa la doonayaa marka waxa weeye in la yiraahdo doorashada Garbaharey baan anagu qabanayna inuu boobaynaa oo aynu rabnaa in ay noqdaan 16 kuraas ee Garbaharey taala kuwii lagu xareeyay magaalada Nairobi hoteelada isla markaasna loo furayay traininada si loogu biiriyo kuraasta Axmed Madoobe uu gacanta ku hayo waxa la doonayaa qorshaha Roble rally buu ka yahay qayb buu ka yahay horaan idinku sheegay marka in la doonayo in Roble la isticmaalo laakiin waa qorshe hadii aniga oo aan xil haynin aniga oo aan filada aan ku jirinin aniga oo aan nisa kamid ahayn hadii aan xogta sii heli karay horaantii February goorma ay filadu sii heshay waa su'aal isweydiin badan dabcan wax badan ka hor bay sii heshay ma ka sii baarandagtay absolutely yes wuxuu yahay baarandagooda ma garanayo laakiin way iska muuqataa waa obvious way markaysa waxaan rabaa marka inaan idin sheego qorshahaasi qorshe shaqeyn doona ma aha waana loo yahay inuu shaqeyn doono waxa la yaab leh oo runtii muujinaya in Roble uusan ahayn qof ballan leh inuu Roble uusan ahayn qof mas'uuliyad qaadi kara waxa weeye sawirka halkan yaala markaad fiiriso waa 10kii July maalinkii magaalada Garbaharey Roble lagu soo dhaweeyay oo shacabka ku soo dhaweeyeen markii la soo dhaweeyay dadkii uu la hadlay doorashada lagu qabanaya Garbaharey waa amaan waxa la soo diray guddi waxay sameeyeen assessment Garbaharey bay tageen waxay la hadleen odayaasha dhaqanka waxay la hadleen culimadii waxay la hadleen dhalinyaradii isla markaasna waxa laga qoray report ku saabsan Garbaharey doorashada lagu qaban karay inka waxa loo gudbiyay Roble guddigaasi markii loo gudbiyay ka bacdina Axmed Madoobe soo gudbiyay waxaan isku raacay dhamaantood Garbaharey inay tahay magaalo amni ah doorashada lagu qaban karo arintaas oo dhan saas inta loo duubay ayaa tarashka lagu riday waxyaalaha uu Roble soo saaro iyo heshiisyada uu Roble uu soo saaro gabi ahaanba kuwa shaqeeya ma aha tusaale in kugu filan dib ugu laabo imise guddi hadda kan soo magacaabi doono inaga daa dib ugu laabo meeqa guddi bad xasuutaa uu Roble soo magacaabay oo uu yiri waxbay qabanayaan ilaa ay hadda ku wax soo saarayaan la aqoon magaalada Beledweyne guddi baa loo soo saaray xay ka baxay garan karta malahan gabadhii Igraan ahayd guddi baa loo soo saaray xay ka baxeen cid garan karta ma jirto maalin walba guddi baa la soo saaraa
cid walba guddi baa loo saaray afgabigu u yiri waa la igu sameeyay guddi baa loo saaray xagee ku dambeeyay cid garan kartaa ma jirto rooble marka guddiyada uu soo saaraya cid walba way ogtahay oo waaqici ah xoogaa leh inaysan kuraasta Garbaharey taala iyo doorashooyinka halka ay u socdaan inaysan waxba ka bedelin laakiin hal wax sameyn kartaa waxay sameyn kartaa doorashada bay daahinaysaa laakiin waxa ma bedesho haddaba ma shaqayn karaan marka qorshaha madoobe iyo dani ay abaabulayaan oo Garbaharey iyo gada ku aadan miyay shaqayn karayaan su'aasha aan rabo inaan ka jawaabo dadkana aan u bidhaamiyo ma runtii ma shaqayn karaan wala arrin aan isleeyahay waxay ka fogtahay waaqica iyo xaqiiqada aad bay uga fogtaa why what is the point gado waa gobol lagu dagaalamay oo xoog lagu kala qabsaday oo ciidan iyo dhiig ku daatay ugu yaraan 200 oo wiil baa ku dhimatay dagaaladii ka socday borderka Kenya iyo Soomaaliya khaasatan magaalada Badaxaawo meelaha kale markii laga soo tago markaysa ciidamada laga soo aruuriyay Kenya gudaha Kenya laga soo aruuriyay ciidamo aan isleeyahay magaca Soomaali kii laag Soomaali ma aha ayaa lagu soo weeraray Soomaaliya markaysa Kenya iyo Soomaaliya ku dagaalamay Axmed Madoobe qayb uu ka ahaa dagaalkaasi dad kale oo fara badan oo siyaasiyiin qaarna reegada ay yihiin qaarna aysan ahayn ee la soo aruurin qayb dagaalkaasi ka ahay waa dagaal markuu dhaqaale badan ku baxay dawladda Soomaaliya dhaqaale badan uga baxday oo wiilal badan oo Soomaalida u geesiin ay ku dhinteen ilaa haddana ay difaacayaan gobolka gada marka waa dagaal oo gobol noocaaya taariikhdiisu ay sida ahayd oo xoog lagu kala qabsaday ma maleynaya marka gobolkii xoog lagu kala qabsaday ciidankii qabsaday oo wali jooga maamulkii qabsaday oo wali jooga inta af Soomaali iyo waraaq yar oo soo baxday iyo rag tameel iska farsay xogaa oo shaax iska cabay qorshe ay soo dejiyeen inay arintaas ku shaqeynayso ma maleynayo labas arrimood baa hortaagan in marka ay Axmed Madoobe iyo Rooble ay rabitaankoodu uu gobol gada ka shaqeeyo laba arrimood baa hortaagan oo kaliya midda koowaad waxa weeye hortaagan waxa weeye waa heshiiskii 17 September waa waxba laga bedeli karin heshiiskii 17 September ayaa waxa si cad ugu yaala in Garbaharey ay tahay deegaan doorashada labaad isla markaas in doorasho lagu qabto ay qasab tahay Axmed Madoobe iyo Rooble haday isku tagaan qodobka ma bedeli karaan waa midda koowaad midda labaadna waxa weeye dadka iyo ciidanka amniga iyo doorashada qabanaya ee gobolka gada jooga khaasatan magaalada Garbaharey waa ciidan dawladda dhexe ee Soomaaliya ka socda ayaguna ciidanka ma saari karaan ciidankana lama iimaan karaan qodobkaan ma bedeli karaan labadaas arrimood marka waa laba arrimood oo taakal ah oo Rooble iyo Axmed Madoobe damac walbo ay leeyihiin aysan marna u shaqeyn doonin waa koow Garbaharey lagama wareejin karo doorashada oo heshiiskii 17 September bay ku taallaa lamana bedeli karo waa one second awood iyo influence kale ku dhex leeyihiin doorashada intay ku qabtaan kuma boobi karaan labaas midna ma sameyn karaan hada marka labaas aan la sameyn karin Garbaharey waa xujo taagan muddo badan taagnaan doonta si walba ay ahaataba ayaga looga doonayaa waa Rooble iyo Axmed Madoobe inay doorashada qabtaan haddana meesha ay ku qaban lahaayeen gacanta kuma hayaan lamana siinayo markaysan waa xujo marka taagan waana shaxan islaahay waa shax mar rabada xuyuur ka shaqeeyay maarin wanaagsan baa mise waa arrin qaldan arno laakiin waa arrin meesha taagan waraaq waa la qori karaa waa la shiri karaa doorashadu way daahi kartaa xagga u wareegi kartaa laakiin ma shaqeyn doonto maalinka ugu dambaysa waxa lagu qasbanaan doonaa in isla Maxamed Farmaajo iyo dadka asaga la socda iyo maamulka gobolka Gado inay ayagu doorashada qabtaan baa lagu qasbanaan doonaa ma laga boodi karaa ma laga boodi karo waa in doorashadu ahaataa inclusive doorasho loo dhan yahay doorashadu ahaataa way dadka marka dhalinyarada ah ay u laab kacaya hadalada iska niyad shabay waxay idin sheegayaan aayar baasho ma dhawa waa degdegaysan adeerayaale u kaadiya 25 bay ahayd doorashada in la bobsiyo la qabto laba qabanin 15 qabseen waa sugeynaa bisha dambe ku darsan waa sugeynaa may hota la gaari meelaha markaysan waan hubaa inta aan si dhaba looga hadal arrimaha gobolka Gado in la gaari doono ugu dambeyn bishaas afraad wixii ka dambeeya horta arrinta bilaabanaysa inta ka horeysa Kismaayo kuraasta ku taala hadamaato kuwa Garowe yaala iyo kuwa Boosaaso la soo dhamaadaan kuwa Beledweyne yaala soo dhamaadaan kuwa Gaalkacyo yaala soo dhamaadaan meesha ugu dambayso la isugu imaado oo la fariisto horta la isku waraysto waa inay Garbaharey ahaataa Axmed Madoobe inta Kismaayo kuraas ku harsantahay Garbaharey wax laga weydiiyaa qalad baan u arkaa laakiin hadalkiisu waa soo qaad male ugu dambeyntii dhowr arrimood baan idin sheegaya oo kooban ku soo koobay live-kayga maanta koow kuraasta Garbaharey taal Rooble Axmed Madoobe ha uga baqina kuraasta Garbaharey taal Rooble Axmed Madoobe ha uga baqina iska sax taas waa qodobka labaad kuwa badan oo hadda Garbaharey jooga oo isku qaba inay ama siyaasiyiin yihiin ama isku qaba in la iloobay ama isku qaba inay ayagu wax ka heli doonaan kuraas halkaas taala ayaa noqon doona kuwa ugu qaylada badan waxa ku jira nabadoono waxa ku jira kuwa siyaasiyiin waxa ku jira kuwa badan oo isku arka
inay wax ka qabanayaan shaqooyinka hadda socda laakiin waxay ka mid noqon doonaan kuwa qayliya oo ooya oo buuqa oo ooya bay ka mid noqon doonaan xasuusnaada arrintaasi ninka carab la yiraahdo wasiirka barashada ah kursigiisu garbaharey buu yaalaa saddexdeena roob la keentay oo xildhibaanada ahaa waa ninka ugu dambeeya kursigiisna garbaharey baa ayuu yaalaa xasuusnaada waa laga tuuri doonaa isaguna meesha ama roob la hadaba fadhiyo ama madoobaha hadaba fadhiyo ama imaaraadka daacadha u ahado asagay u taallaa ninka ugu horreeyay mudday buu ahaa ninka labaadna shiiqaalow buu ahaa asagaa ninkii saddexaada kursigiisii garbaharey buu yaalaa allaha aruush waa ku daya isaguna doorashadu way daahi doontaa finally muddo badan bay doorashadu daahi doontaa bisha hadda aynu ku jirno waa February March baa la qabshay 10keeda ma dhamaan doonto bisha ka dambaysa la yiraahdo April ayaduna inay dhamaan doontaan aaminsan laakiin April wixii ka dambeeya si dhab loo wada hadli doonaa kuraasta garbaharey taala waxa kale soo labayn doona kuwa Boosaaso yaala sidaan islaahay waa suurtagal in qadiyada Boosaaso la dhameeyo laakiin labada soo hari doona waa Boosaaso iyo garbaharey waxaana sii dambayn doona garbaharey maalinka ugu dambaysa reer garbaharey iyo reer gada ayaga doorashada qabsan doona ayagoon Axmedoobe hoos fadhinin ayagoon Rooblo hoos fadhinin ayay qaab ay ku kalsoon yihiin ayay u qabsan doonaan meelan garbaharey ahayna doorashada kama dhici doonto arrintaas qabsada waxa ka horeysa ha iska taqdo bulo budii jiraa Sheekh Cabdi Xirsiye ha iska taqdo cidii taxaysa taqdo warintaasaan idinku ogahay khayr caafimaad baan ku ogahay assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh